Suurtagal ma tahay in maskaxdiina ay ku soo dhacdo in dhagaxan ka samaysan bulukeetiga uu ka mid yahay qalabka ugu halista badan ee wax lagu basaaso ee ciidamada gumeystaha Israa'iil ay u isticmaalaan basaasidda shacabka reer Gaza iyo muqaawamada? Haa, waa qalab basaas. Mid ka mid ah saraakiisha sirdoonka xoogagga muqaawamada oo warbaahinta la hadlay ayaa daaha ka qaaday xogo iyo macluumaadyo cusub oo la xiriira qorshayaasha iyo dhagarta ciidamada Israa'iil si ay u beegsadaan dagaalyahanada muqaawamada iyo shacabka reer Gaza. Qalabka basaas ayaa isugu jira kuwa aragga iyo maqalka, waxayna ciidamada gumeystaha ku talaaleen wadooyinka iyo dhismayaasha burbursan ee marinka. Laakiin sirdoonka muqaawamada oo dhagartan ku baraarugsanaa ayaa kashifay, kala furfuray qalabkan intiisa ugu badan. Qalabka basaas ee ay sirdoonka muqaawamada kala furfureen waxaa ka mid ahaa dhagxaanta bulukeetiga ee dhexdiisa lagu qariyey qalabkan. Qalabka lagu qariyey waxaa ka mid ah qalab wax lagu dhageysto oo ah qalab loogu talagalay inuu duubo codadka dadka. Sidoo kale waxaa ku rakiban kaamiro awood u leh inay kashifto ama aqoonsato wejiyada shakhsiyaadka ay doondoonayaan sirdoonka gumeystaha. Sidoo kale si ay u kala duwaan dooqyadooda basaasnimo, sirdoonka gumeystaha waxay qalab basaas ku dhex qariyeen qaar ka mid ah dhagxaanta loo adeegsado dhismayaasha guryaha, gaar ahaan dhagxaanta yaala isgoysyada marinka Gaza. Laakiin sirdoonka muqaawamada ayaa arkay kadibna kala furfuray. Inta badan qalabkan waxay ku qariyeen wadooyinka ay sida aadka ah u isticmaalaan shacabka ay sida qasabka ah uga barakiciyaan marinka, taasoo ka dhigaysa inay bartilmaameed sahlan u noqdaan in sirdoonka cadowga uu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqooda. Sidoo kale sirdoonka muqaawamadu waxay gacanta ku dhigeen qalab kale oo basaas oo ciidamada gumeystaha ay ku dhex qariyeen mid ka mid ah tubooyinka biyaha qaada. Laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee ayay Israa'iil qalabkan basaas ugu talaashay meelo kala duwan oo marinka Gaza ka tirsan? Sirdoonka gumeystaha ayaa qalabkan basaas ku talaalay qaybo ka mid ah marinka iyagoo adeegsanaya diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano quadcopter. Diyaaraddan ayaa loo adeegsadaa adeegyo kala duwan oo dhinaca militariga ah iyo sidoo kale si ay u dabagasho bartilmaameedyada dhaqdhaqaaqa ama sugan. Dhinaca kale, guutooyinka Al-Qassam ayaa dabinkii ugu weynaa u dhigay ciidamada Israa'iil kadib markay si ku talagal ah ugu tageen mid ka mid ah tanaladooda marinka Gaza. Tanalkan ayaa ahaa mid wada miinaysan, waxayna gudihiisa ku sii xireen kaamirooyinka qarsoodiga ah si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada gumeystaha si ay ugu qarxiyaan marka ay gudaha u soo galaan. Ciidanka gumeystaha oo muddo 1 sano ka badan ka dagaalamayay marinka Gaza ayaa weli u muuqda kuwo aan ka faa'iideysan wax khibrad ahna aan ka helin dagaaladii hore, maadaama sidan oo kale dhowr mar horey loogu dhigay dabino la mid ah dabinkan. Haddaba maxaa ka dhacay xaafadda Shujaaciya? Unug ka mid ah ciidamada Gifcaati kuna sugnaa deegaanka Shujaaciya ayaa waxay arkeen tanal aad u weyn, lehna albaab laga galo oo weyn. Intaas kadib waxay u wacdeen unugga injineerada u qaabilsan tanalada, iyagoon iska hubin in uu yahay tanal miinaysan ama tanalada ay Al-Qassam u adeegsato howlgaladeeda militari ayay gudaha u galeen. Markay marayaan meel dhexe ayaa hal mar waxaa loo taabtay rumuudka, halkaas ayayna ku halaagsameen kuna asmin dhammaantood. Xogaha sirdoonka Israa'iil ayaa sheegaya in dagaalyahanada Xamaas ay dhex mushaaxayaan gudaha tanalada Gaza iyagoo xiran dareys madow oo ku habaysan qoryaha darandooriga u dhaca, iyagoo si habsami leh u socda islamarkaana dareemaya siday inay gurigooda ku sugan yihiin oo kale, halka ay ku sugan yihiin gudaha shabakadaha godadka dhulka hoostiisa mara, sababtoo ah waa godad ay iyagu qodeen oo ay gacmahooda ku dhisteen. Qaar ka mid ah godadka saqafka sare ayaa ku filan in dagaalyahanadu ay maraan iyagoo aan madaxa foorarin. Dhulku qaybo waa engegan yahay, qayb ka mid ah waa dhoobo, qayb kalena way adag tahay in la ogaado dhererka tanal kasta, laakiin waxay u kala baxaan jihooyin kala duwan. Marka aad gasho tanalka ma maqlaysid dhawaqa shanqarta bannaanka ka socota iyo diyaaradaha dul heehaabaya marka ay marayaan dusha sare ee tanaladan. Waxaa taas laga dareemi karaa sida ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil mar walba ugu duqeeyaan marinka gantaalo iyo bambooyin aad u culculus.